Qormadan ayaa uu gudoomiyaha Golaha Danta Soomaalida Axmed Sheekh Maxamed Baaji kaga hadlay xaaladda haatan ee ka taagan dowlad-deegaanka Soomaalida gaar ahaan Madaxweyne Mustafa Cumar. Qormadiisa ayaa waxa uu ku bilaabay waxaan akhriyay qoraal uu Mustafa Cumar soo dhigay bartiisa bulshada ee Facebook. Waxaa sidoo kale ka horeeyay wareysi uu isla bishan bixiyay. Wareysiga iyo qoraalkaba waxaa ka muuqda walwal iyo deganaansho la'aan. Dadka yaqaana waxay isweydiinayaan waxa uu ku hanayo. Walwalka Mustafa waxa uu inta badan ku qotama aamuska mucaaradka iyo bulsho weyntaba waxa igu soo dhacday sheeko uu nin boqor ahaa kula taliyay wiilkiisa oo dhaxalka ku wareejinayay. Wiil dhalinyaro ayaa boqortooyo ka dhaxlay aabihii, kadibna aroortii ku xigtay caleemasaarkiisa ayuu aabihii oo sariirta saaran u tagay isagoo talo raadis ah. Waxa uu weydiiyay aabe, waan aqaan ifaalayaasha muujinaya in shacabku i jecel yahay. Waxaan rabaa inaad ii ifiso tilmaamaha aan ku garan karayo in shacabku inacay xukunkeyguna gabaabsi yahay. Boqorkii hore waa wiilka aabihii. Waxa uu ugu jawaabay, waa maalinta dadku ka aamuso go'aanada aad gaadhana laga falcelin waayo. Markaa Mustafa waxa ka aamusay ma aha mucaaradkii, waa ummadii deegaanka oo dhan oo ka qusatay. Waxa isweydiin mudan maxaa keena quustan. Mustafa qoraalkaaga iyo wareysigaaguba waxay u badnaayeen erayo la moodo inaad kala soo baxday kaydkaagii, luqadihii maldahnaa ee UN-ta ee aan macnaha badan lahayn. Laakiin aan ku su'aale, ma soo martaa jardiinooyinka magaalada Jigjiga oo boqolaal dhalinyaro ah oo da'dii wax soo saarka ay qoraxdu ugu soo baxdo gobolkuna ugu dhaco? Mustafa, haddii aad dhageysan lahayd iswareysiga dhalinyarada, waxaad ogaan lahayd quusta ay taagan yihiin iyo inaanay wax rajaa ka qabin shaqo abuur aad u samayso iyo waxbarasho midna, balse waxa ay ka sheekeeyaan sidii ay uga daba tegi lahaayeen kumanaan saaxiibadood ah oo hore dalka uga haajiray oo isku biimeeyay tahriib iyo haligaad ay kuwo badan ku nafwaayeen. Halistaas iyo haligaadaas ayay ka doorbideen inay rajo ka fishaan oo ay mugdi geliyaan mustaqbalkooda. Waxayna gaareen heer ay quusteen. Mustafa, tan iyo intii aad xukunka qabatay, tayada waxbarashadu heerka ay gaartay inaad og tahay waan hubaa, balse aan kuu fasiro sababta quustana gaarsiisay. Doodo hore oo na dhex maray Mustafa waxa uu isagu ku adkaystay in aanu isku hayno siyaasad, balse anigu waxa aan u sheegay laba shay. Waa midda hore in aanan aniguba ubaba arag in uu siyaasi yahay, sababtoo ah macnaha siyaasaddu waa maareynta arrimaha ummadda oo ah mid Mustafa aan marnaba ugu jiray manhajkiisa. Ujeedadu uu u soo galay siyaasadana ay ahayd mar dambe ha u xaadirin mushahar caddayna waxa uu ah boobka qaawan ee uu kula kacay dowladda oo uu gaaray in jaamacad 10 sano ka hor madaxa xafiiskiisu uu ka qalin jibiyay in lacagtii kaga baxday looga magdhabo khasnadda dowladda. Waa midda labaad waxa aan isku haynaa inuu yahay dal iyo dad taariikh. Sababta aan uga soo horjeedana ay tahay dagaalka uu kula jiro taariikhda iyo jiritaanka dadkayga. Tan waan u soo noqon doonaa, balse aan u leexiyo dooda dhanka uu isagu doonayo. Qoraalka Mustafa waxaa ka muuqda qof ku faanaya inuu adkaaday, balse aan ka turjumayn xaqiiqda iyo waaqiciga ka jira deegaanka. Adduunka cidii mucaarad ku ah dowlad ee rabta inay awoodda kula tartanto, jidka ugu habboon ee u bannaan waa in la helo tartan yuusan xor wada ahaaniba, ayna suuragal noqoto in cod lagu kala badiyo. Aan ku su'aale, guusha ma waxaad u taqaan Mustafa in jiilkii dhammaa aad ku tilmaamto jiil lumay, lost generation, kagana dhabayso in 99.7% ay ardaydu ku dhacaan imtixaanka? Intii suuqu qulqulka ku gashay, jaamacadda aad uga daba tagto oo aad u beddesho meel dameeraha iyo ardaydu isdhex ceyrsadaan, meel ardada affirmative actionka ku soo gala jaamacadaha marka ay maqlaan in Jigjiga University lagu qoro ay ka doorbidaan waxbarasho la'aan. Sababta keentay in jaamacadda Jigjiga ay heerkaas gaadhana ay tahay kadib markii aad maryaha u dhigatay in adeerka Bashiir mooye aad cid kale meesha la geyn karin, adigoo ku doodaya jifadeeda hoose hal boos ma haysato. Guusha aad sheegayso ma inaad madaxtooyada cusub dumiso oo qarashkii daayarta aad ku sheegtay jiilka lumay iyo islaamaha qabri baxay iyo qabri dahare xaynkooda laga soo furay aad qasri ku dhistaa. Hadda aan kugu daree,
haddii aad dhanka bidix qooraasatana waxaa kusoo muuqda qaxootigii golaji oo gelin hore waxoodii iyagu qayriin ah aad wajaale usii qaadeen. waxaan la soconaa doorashadii uu yidhi waan qaban noocay ahayd iyo sida aanay marnaba suuragal u ahayn in lala tartamo. haddaba muxuu rabay? ma in qori loo qaato oo dagaal la galo? ma filayo taas cid go'aansatay inay jirto. sidoo kale siduu u dhigay ma jirto cid kusoo aakhiro toosta. musiibo rabaani ah oo dhacda haddii ay ciddani ugu jirtana waa cidda miisaaniyadda musiibooyinka loogu talagalay dabaqyada ku dhisata, carruurtooduna baabuurta cadcad ee ay ku raaxaystaan uga gada. wuxuu qiray in aanay deegaanka ka jirin doodo xog iyo afkaar ku salaysan oo istiraatiijiyadeed. waana kula qirayaa, waana inaad diidanayd ruuxii soo hadal qaada ama isku daya inuu kula doodana aad xabsiga u taxaabaysay. mustafe waxaa kale oo uu qiray inay hoos u dhacday tayadii siyaasadda ee deegaanku. waxaa isweydiin leh, yuu ka sugayay inuu xal u keeno oo uu hagaajiyo tayada siyaasadda deegaanka? ma dadka xabsiga ku jira? ma kuwii uu ka ugaarsanayay Addis Ababa? ma kuwii uu u diidanaa inay xitaa shir ku qabsadaan Jigjiga? soo ma moodid inuu soo aakhiro toosay isagu? waxaa wax laga yayaxo ah in mustafe maanta yidhaahdo waa la isku ilka beelay oo dhacdooyinka iyo ashqaas ayuu waqti ku lumiyey, midhaa isagu ilka beelay. arrinka uu hadda qiranayana ku mashquulsanaa 6 sannadood ee uu xukunka ka hayay dadka faraha badan ee arkaya siduu wax u wado ma ilka beelin. waxaase dhammaatay ka doodistiisii. cidda ay yihiin dadka haysaaye ay yihiin intii hore waxaa lagu mashquulsanaa in la qeexo, la iskuna waafaqo ficilada uu sameynayo hoggaankuna. waxaa haddaba hubaal ah inaan hadda taas laga doodin maadaama la isla meel dhigay. mustafe waxaan ku leeyahay, waxaa hubaala haddaad ka nixi iyo haddaad ku farxdiba inaan dadka caad ka saarayn dhibaatooyinka aad bulshada u geysatay. isweydii heerka uu boobku gaaray iyo kaalinta aad ku leedahay. ma garan kartaa meesha ay maciishadu gaadhay? inkastoo adoo dadka waaninaya aad kula talisay inay toddobaadkiiba mar soo adeegtaan, qaboojiyahana gashadaan, filayo inaad garan karto boqolkiiba dadka deegaanka inta haysata koronto, inta heli karta qaboojiye, iyo inta iska daa toddobaadkii waxay cuni lahaayeen haysata waxay maalintii quutaan. ma ogtahay in markii ugu horreysay deegaanka xafiis ay dowladdu leedahay la siiyey qof shacab ah, haddana isla xafiiskii laga kiriyay dowladda? waxaa markii ugu horreysay deegaanka ka dhacay in dugsiyadii carruurtu wax ku baranayeen in dad lacago qaato lagu wareejiyo laguna tilmaamo maalgelin. waxaad la socotaa akoontiyada shakhsiyadu leeyihiin iyo boqolaalka milyan ee lagu shubo sida cad een xitaa lala xishoon. waxaa marar badan aragnay mustafe oo ku faanaya waxqabad. waxay ahayd in ugu yaraan dareemo in dadku caqli leeyihiin, haddiiba qaar ka cabsan jiraana ay garan karaan waxa uu sameynayo. imise mashruuc oo lacagtoodii la qaatay ayaan waxba laga qaban, sida biyo gelintii Jigjiga iyo qabri dahar. ma aha wax halkan lagu soo koobi karo. ha xasuusto inuu golaha baarlamaanka deegaanka ka hor qiray inuu musuqii iyo boobkii dimuqraadiyeeyey oo u dhiganta ma xakamayno ee waan fasaxnay. waxaa cad hoteelada laga gatay waqooyiga Ameerika iyo sida naxariis darrada ee aad ugu tamashalayn tagtaan dibadaha. waxaa habboon lahaan lahayd in waqtigan aydan kaba hadal dan ummadeed iyadoo ay qoyan tahay dhacdadii ugu foolxumeed oo aad dhahdeen jaamacaddii aan dhammeynay 10 sano ka hor deyn laygaga lahaa waa inaan bulshada iga bixiso. waa waxaan deegaanka hore uga dhicin. waxaa mustafe leeyahay waxaad ku dhawaaqday inaad burisay heshiiskii Soomaalida iyo Xanfarta adigoo dadka aan markaas ku aqoon isaga dhigaya nin wadani ah oo soo dhicinaya dhul xaqdaro ku maqan. waxaa isweydiin leh imise kun oo ruux ayaa sababta u dhimatay? ma soo celisay dhulkii intii la hayay? ma la hayaa? mase qoomamaysa habeenkii markaad og tahay tobanaanka kun ee dhalinyarada ciidanka iyo shacabka ah ee aad halaaga baday iyo dhulkii aan murankuba ku jirin ee maanta gacanta Soomaalidii lahayd ka baxday? mustafe dadka iyo dalka waxaa isku xiraa waa taariikhda Soomaalida ee gobolka. waxaa ku xaranaa dhiig ay jiilal badan u daadiyeen sidii ay dalkooda, dadkooda iyo diintoodaba u difaaci lahaayeen.
waxaad fagaarayaal kala duwan ee ka sheegtay inaad aaminsan tahay inaan Soomaalida wixii ka horreeyay xukunkii EPRDF ama TPLF waxaa dhibaato ah ay soo gaarin dhiig-cabyadii Menelik, Haile Selassie iyo Mengistuna aad ku tilmaamtay sheeko xariir TPLF aliftay. waxaa gole ay ku dhan yihiin maamulka deegaanka oo dhan laga cadeeyay inaad dowladda dhexe ka dalbatay in taalo loo dhiso dhiig-cabkii gumaaday labeentii maatadii iyo birmigeedadii ummadda Soomaaliyeed. waxaad xaqirtay dagaaladii lagu baadigoobayay xuquuqda iyo xorriyadda Soomaalida. waxaad marar kala duwan ku dooday in loo baahan yahay in laga gudbo nidaamka ku dhisan qowmiyadaha loona tallaabo mid ku dhisan nidaam juqraafi iyo jihooyin. taas waxay muujisay inaadan dan Soomaali ku maqnayn lagaana sugeen. waxaad soo jeedisay inaan la gaaray xilligii xanta laga gudbi lahaa. xan ma aha in muddadaad xilka haysay tiradii u badneed ee isku dhac beeleed ka dhaceen deegaanka badankoodna aad si toos ah ugu lug leedahay. xan maaha inaad odayaal shiraya aad ku leysay Bambaas, waxaa dembi ahna aan gelin ku tiri kuteen ma aha in Jigjiga gudaheeda lagu kufsaday gabar Soomaaliyeed oo 7 jirsan. lama mala awaalin haddii la sheego in gabagabo oo aad ugu dhow xafiiska gabar Soomaaliyeed god ka yar 2 mitir 4 habeen ku jirtay kuna geeriyootay iyadoon la soo gurman. dacaayad maaha haddii lagu dhaho dad shacab ah ayaad ku xasuuqday Waydkaal, mana aha in aad ka gubato ee waa inaad xaqiiqda siday tahay wajahdo. kuteen ma ahan inaad qasri jeexatay in iyadoo qaxootigu qoloji ku muuqda ay dhaxanta iyo daraayadu duleysatay. waxaad moodaa in Mustafa leeyahay 30 sano siyaasadii deegaanka ee ku dhisneed beenta iyo nacabuurka natiijo lagama gaarin. waxaa xaqiiqtaasi ah si meesha looga saaro dhibaatadaasna waxa aanu Mustafa ku taageernay maal iyo muruqba. nafteedana waan u biimeynay si uu nagu hogaamiyo sidii deegaanka looga gudbin lahaa marxaladaha uu sheegayo. muxuuse qabtay isagu 6 sanadood kadib haddii la aamusay waxay ahayd inuu garto in la gaaray marxalad aan lagu mashquulin ka hadalka dhibaatada deegaanka ee uu aabbaha u yahay. ee hadda la isweydiiyo maxaa xal noqon kara iyo sidee looga gaaraa xalkaas. marnaba isagoo qayb kama noqon karo arrintaas. muddada uu sii joogi meeshaas uu dadka ku dhibaateeyey, hantida dadka tabaalaysan ku boobay, dembiyada culusna ku galay, waa mid u taala Ilaahay. ma aha mid annaga gacantayda ku jirta, mana aha mid aanu go'aansanay inaanu xabad u qaadano. sidoo kale ma muuqato sharciyo dadka deegaanku u siman yihiin lana ixtiraamayo oo maanta loo marayo wax ka qabadka diifaha uu badayo dadka. waxaase hubaala inaad qoomameyn doonto. mar kale aan ku su'aalo guushuma waxaad weeyay inaad tiraa jifo hebel ha ka guurto magaalada kadib markii la dilay Allah u naxariistay Suldaan Cabdi Khaliif. hadda ogow baaritaankii dilku inuu gurigiina ku soo dhamaaday, odayaashiina la fajaceen fidnadii aad rabtay in dadka walaalaha ah ay ka dhex dhacdo. Mustafa ahamiyadda loo galo siyaasad waxaa ka mid ah in siyaasigu ka tago dhaxal una galo diiwaanka taariikhda. laakiin adiga taariikhda iyo sooyaalka deegaanka waxa aad ku galaysaa oo ay dadku waxay kugu xasuusan doonaan. 1 inaad ahayd Anwar Saadaad kii Soomaalida waa markii aad ka degtay Bahardaar. 2 in aad dowladda dhexe aad ka dalbatay inta loo dhiso kuwii dalkayga gumaaday. 3 inaan duudsiisay halgankii iyo shuhadadii ummadda Soomaaliyeed. 4 inaad shacabka Soomaaliyeed dusha u saartay dembi taariikheed oo aanay gelin, kii laga galana aad duudsiisay. gunaanadka qormadeyda waxaan kaga tegayaa talooyinkii ku qornaa labadii warqadood ee Qarashfaaf uga tagay Brezhnev. waxaad 6 sano ku soo mooday warqadihii hore ee ahayd wax walba kii hore ku eedee. hadda waxaa la gaaray xilligii aad warqadda kala furi lahayd, ayaa ku soo gabagabeeyay qormadan oo uu qoray oo uu kaga hadlayay xaaladda ay ka taagan haatan dowlad deegaanka Soomaalida, gaar ahaan madaxweyne Mustafa Cagjar. qormadan waxaa bartiisa Facebook ku qoray gudoomiyaha golaha danta Soomaalida Mudane Axmed Sheekh Maxamed Baaji.